رئيس وحنا ويدين دونا دكتور محمد جيدي جمعالة بدون حقيقة بريمير بانك سؤال شرحي نقول دونتا محيين إسبدلات واوين أتكو أرك السوق الشقة سندي يقول دبي جارهان هو سامين تقول إن أرضي العصب جامعة السوق الجبين أما هو جارهان هو سامين أيان أرضي العصب جامعة السوق الجبين سؤال شرحي كلا كل دونا محيين إسبدلات واوين أتكو أركتي سوق الشقة سندي يقول دبي جارهان هو سامين أرضي العصب كسوق الجبين حلو يقانو جامعة hay-adaha joogaa markay u baahan yihiin shaqo bannaan in la buuxiyo markiiba waxaa garanaysaa waa baahi baa soo baxday baahi baa jirto baahidaas marka si loo buuxiyo dadka raba inay baahidaas buuxiyaan waxaa laga rabaa xirfadeedii marka shaqaalaha hay-adaha loo shaqeeyaa waxay rabaan dad ma rabaan laakiin waxay rabaan xirfad marka qofkii wuxuu imaanaa asagoo shaqadii rabo laakiin shaqadii xirfadii ay rabtay aan haynin marka waxa la rabaa in la soo daaweeyo waxa waaye waa in la soo diyaariyo xirfadii in la soo diyaariyo xirfadda maxaa xirfada haddii la yiraahdo waa badan yihiin laakiin marka la soo ururiyo suuqa shaqada ee hadda jira waxa waaye waa xirfad raadis waxaa la raadinayaa dad xirfad gooniya leh yaa jaamacad ka soo baxay وعوان كره لكن شق ملهبلي يا فيعان تصالي ير أو أطيف عن قرن كرتان هذا ينزيو بريبا وحايمي قف ده يا وحان كسو قلن جبيه جامعات قارهان قيبت أيتيدا أيان كسو قلن جبيه شقنا واربا مرحلة أنا ومحسن تحصلوا شقنا ولبسينا لكن وحاول بحث إلى امتحان كشو ترتن كشو interview marto maaragtay department-gaana inta badan waxaa jooga dad kala maaragtay diverse oo ummado kala duwan hindiya joogto waxaa joogto Pakistan Kenya joogo qoloyin kala joogo imtixaan baa maraysa marka wuxuu dhahay aniga hadii imtixaanka English lagu marayo ma gali kari aniga communication skills kiisi marka waa soo haray laakiin wuxuu rabaa inuu yiraahdo jaamacada ma ka soo baxay shaqada la iga wareeg wardaniyo hadii aadan baa maaragtay imtixaankiiba mari karin sidee marka la soo ururiyo noloshu waa isbedelaysaa shaqadii maanta waxay u baahan tahay xirfadii ayaa maaragtay projectska shaqooyinka projects u bateen projects waxay rabaan marka xirfado gooniye rabaan markuu dhamaado mashruucan xirfadiisina way la dhamaatay adiga aad ku shaqeynaysid midka kale oo bilaaban doono waxa laga yaabaa inuu haddana xirfad kale ka rabo marka dadkeena waxaan ku soo ururin lahaa inaynu gadaal isugu laabano oo aynu dhisno xirfad mararka qaar ardayda marka interview-ga ka qaadayna jaamacadaha yimaada qofku wuxuu ku dhahaa 4 sano aan jaamacad dhiganayo 2 sano master aan dhiganayo sidaasaan ahay marka waxaa weydiinaysaa 4 sano jaamacadda aad dhiganaysay waa gartay gelin jaamacadda aad dhigan jirtay gelinka kale maxaa qaban jirtay xilligii uu skills-ka dhisi lahaa oo maaragtay certificate-ka kala samayn lahaa skills-ka samayn lahaa oo dhan wuxuu ku leeyahay waan iska joogi jiray marka wuxuu keenayaa degree-gii oo waxa la socdaana ay maran tahay macnaha communication-ki maran yahay project management maran tahay organizational skills-ki maran yahay ugu yaraa waxyaabihii basics-ka ahaa computer skills-ki aan la haynin marka taladu waxay tahay suuqa waxaa ku cusub shaqaale lama rabee xirfad baa la raadinayaa xirfaddii aan soo diyaarsan waa maastaa هذا يا ما سنتهي سؤال حكتو حسين دونا دكتور محمد جيدي جمعالي قدوم كحجين كبريمير بان احنا علم بارد دكتور حيلنا سؤال شان سيدي قفك هالابورو نقول كرا يطلعين بودين على سيس هدول لا طلعين بودو قبل هل دقيقة إن شاء الله. أبو سنتهي إنجنير سؤال شان سيدي هذا سيدو كلام هل قبل كزوروريو qofka sidee buu maaragtay hal abuur ku samayn karaa si uu wax u abuurto fikrad u curiso wixii dhimanaa u dhameystirto waxa maqan aad maaragtay wax ugu soo kordhiso waxa u baahan tahay in wixii jiray aad marka hore ka warhayso si wixii jiray uga warhaysan marka waa laba meelood midkood in sida ay abaaya sheegtay aad maaragtay shaqada ama tijaabo ku gal ama maaragtay tababar ku gal
ama volunteer ku gal inaad garoonkii tagto oo wixii jiray aad ogaato si ay fikrad kuugu dhalato midna waxa weeyaan markii kale oo daraasada aad ku jirtay iyo markaan aad haysataan maaragtay internetka aad haysataan iyo inaad ka faa'iidaysataan oo iyadana fikradaha waxa jira aad soo ogaato laakiin qof kooma ku jira gelinka dambe iyo gelinka hore in badan oo ka badan waqtigiisii maaragtay kooma ku jira oo social media iyo TikTok iyo oo aan dhinacii faa'iidada lahayn ku mashquulsan waxaa moodaa waxba ma soo kordhin kara marka se wax u soo kordhisid internetka waa nimco waaye famshuu fii manaakibiha sheekha wuxuu fasiray markii dadka la dhahay maaragtay jidadka ilaahay mara oo adduunyadan mara oo raadsada cilmiga iyo arsaaqda raadsada famshuu fii manaakibiha adduunkan adinkaa laydin sakhiray jidadkiisa mara jidadkii internetka soo galo marka maanta halkan aad joogtaa maaragtay in qof jooga Australia America shaqo u dirsto shaqadii ku qabto lacag aad siiso paymentkiisa internetka dhexdiisa marka waa noloshiiba halka martay sida aad u maraysaa haato si fiican oo aad wax ku kororsanayso markaas aad waxa jira wax ku dari kartaa waxa jira inaad ogaato kadib markaa waxa ku kordhin kartaa saasa ku tahay entrepreneur insha Allah taala waa maasanti aad iyo aad u mahadsantahay waa talooyin runtii dhaxgal ah